ku timi sidee baad responsibility inta laga qaadan kartaa oo haye kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xiliyadan oo kale toddobaadkan waxaa noogu martay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucud Ahmed Abdi Muuse Abiyin wahagaag xilli wanaagsan waxaan jecelahay bal inaad nooga waranto taariikhdaada oo kooban بسم الله الرحمن الرحيم فيصل واد ما سنتهاي وانا سلام يا اديغا iyo bahda Universal iyo daawadayaashadaba anigu magacayga waa Saad Sheekh Ahmed Abdi Muuse Abiyin waxaan ku dhashay deegaamada hoostimaada magaalada Lascaanood gobolka Sool yaraantayda waxaan ku barbaaray xamar kadib markii dagaaladii sukaya bilaabmeen waxaan uga sii gudubnay inaan famigayga la socda Kenya sagaashamaadkii ayaan markaa haddana uga sii gudbay dhulkii loo hayaamay galbeedka wadanka Canada ayaan degay halkaasaan deganaa ilaa muddada waxaan ka bartay reer iyo caruurna ku yeeshay ilaa 2014kii ayaan ku soo noqday wadanka intaana deegaankan u badnaa anoo ka shaqaynayay arrimaha deegaanka iyo horumarinta mujtamaca ama bulshada degta goboladaas Sool Sanaag iyo Cayn waqtigaan oo ilaalinayay intaasaan ku soo koobayaa in wahagaag maxaad u dooratay bal labada xisbi qarana kale maxaad xisbiga loo dooratay waxaan ugu doortay xisbiga ucid wuxuu ku dhiiraday waxaan ku dhiiran xisaabta kale ku dhiiraday inuu ka shaqeeyo waliba si dhab ah oo niyada in Soomaaliland midnimadeeda iyo lahaanshaheeda la xaqiijiyo isaga ayaa go'aan ku gaaray markii koowaad in uu u xusho sharaxiisa madaxweyne ku xigeen shakhsi ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn gobolada bari isaga oo hadafka u kala ahaan ay ahayd in la helo Soomaaliland midaysan oo la wada leeyahay oo la wada qanacsan yahay gudoomiyuhu soo ku maasan Faisal runtii door weyn buu ku lahaa wada hadaladii nabadda ka dhaxeeyay Khaatumo iyo Soomaaliland wax badan buu deegaanka tagay ilaa haddana uu ku guda jiraa oo wax weeyaan door weyn buu ku leeyahay arimahaas oo arimaaniga oo aan aaminsana ama values-kayga yahay runtii iga guuxayay baan ka helay xisbiga ucid saasaan ku doortay wahagaag jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka waa jago weyn adiguna nin dhalinyaro ah tahay ugu horeyn sidee bay arrintaasi saameyn ugu yeelan kartaa matalan midnimada Soomaaliland mid kale responsibility-ga miya lagu duducay adigu mise adiga gartay sideed ugu dheeratay runtii Faisal horta ma yari walaal muqaarahan inaan u yarahay laakiin dahan uma yari ilaa 94kii ganacsi baan ku jiray iyo shaqooyin marka waqti aad u dheer weeyaan may anigu galaangal ma sameyn laakiin waa waxay ku timid garasho lay gartay aqoonteedii iyo khibradeedii iyo يعني دور كان كلها بالشدة مجتمع كسر شيء قبل هذا دينا قطع حلقة قربها يكنوذ أمريكا يهدينا قطع الدجان كيبا مركا وحلا يقرتيبها وحنا قاعد دونتي معين وهجاج سيدابي بالصامين ويا أنا كرتها مثلا شجدنا إلا هذا محا ريسبونت كايسا عم بطرينا قبل هذه صال إيو مجتمع الدنيا عالمهان المركز الله يجوا المجتمع عالم كين يجي سيدا وقع أنا كرتها المادة مع شكلها سكون لقوم مقعابي مثلا وأنتي بنيد حوجها والله سامين وين بيكون يرانيسا يعني وحويان كنتي مقعابي دني واحد رحضي يعني political landscape يعني مسرح السياسة دي الصوماليين عاد بيروحضي وايو وعد كدير هذا وحويا وح أنا هوري أقول ديرن حسابتك له يعني political culture ما دقن السياسة دي وان كتشرين Somaliland wixii hadda ka horeeyay oo Somaliland oo hadii aynan siiriyeen runtii midnimadeedu aanay dhameystirnayn iyo wada lahaanshaheedu ayuu ku dhiirhaday in uu soo magacaabo shakhsi ka soo jeeda deegaankaas si loo xaqiijiyo wada lahaanshaha iyo midnimada Somaliland arintaasi waxa ay hadda la kowsatay wada hadaladii nabadda ee gobolada bariga Khaatumo Somaliland
waxaan is leeyahay marka wax badan bay ka bedelaysaa jawiga siyaasadeed ee Somaliland gudaha iyo caalamkaba waayo caalamka de kama qarsoonayn Somaliland in ay ka jirtay conflict iyo khilaaf siyaasadeed iyo isdiidanaan wax badan inay ka maqnaayeen gobolada barigu waxaan ognahay aftidii la qaaday dastuurka 2001 bay ahayd Somaliland la saanad waxay tagtay 2007 marka yani xaqaaqiq baa jira runtii aad moodo siyaasiyiinta Somaliland mudaba inay isdiidsiinayeen ama ay islowsiinayeen oo ah waaqica ama xaqiiqada ka jirta gobolada iyo mantiqadaas aad ka u ballaaran iyo mujtamacaas faraha badan marka waxaan isleeyahay mashaakishaas oo dhan door weyn baan ka qaadan karaa aniga magacaabadeedu ka qaadanaysaa xisbiga ma guuleystaa ma yaanu guuleysan laakiin waxa weeyaan waa culture siyaasadeed oo ka duwan culture-kii hore u jiray oo bilaabmay oo positive caalamkuna arkayo waxa weeyaan qiimeynayo hagaag had iyo jeer markaynu eegno matalan goboladaasi aad ka soo jeedo saami qaybsiga had iyo jeer waxa weeyaan had iyo jeer waxay yiraahdaan saami qaybsigu sidii la doonayo walow ma dhacin sidaad u aragtaa walaahi dadkaas kaliya ma oranay xataa siyaasiyiinta Somaliland qaar badan oo kamid ah ba arinta aad ugu dhirado cadeeyay marar fara badan oo Faysal uu kamid yahay saami qaybsi ma jirin hadda waxaad ka garanaysaa wada hadalladii hadda socday Khaatumo iyo Somaliland waa tii dhowr jeer qodobo la soo saaray qodobada waxa kamid ah awood qaybsiga kamid ah dastuurkan la furaa kamid ah arrimo badan oo waaweyn oo masiiriya oo Somaliland ku saabsan in laga wada hadlo oo laga yaabo hadda ka horna ay ahaayeen taboo waxaan la taaban karin marka saami qaybsiga awood qaybsiga intuba ilaa iyo hadda way maqayin waana dareenka shacabka mandiqada ku nool ay qabaan runtii anna la qabo xisbi ahaanna hadii aan ku guuleysano waxa hadafkaygu yahay inaan taxaqiijino si loo helo Somaliland midaysan waayo bulsho ama ummadii waxay ku hormartaa midnimada weeyaan hadii qayb kamid ah ummadii ama wadankii ay tabanayaan ama ay dareemayaan inaan qayb ka ahayn systemka jira tan noqoto dhaqaalihii resource-kii awoodii siyaasadeed waxay wadankaasi deganaansho siyaasadeed heli maayo amni heli maayo sustainability wadankaasi inuu sii jiro horumarana way adkaanaysaa وهاجاج حسب قناة مشارحات كتهاي حد يشارك على رئيس قبسي بكده أو مدبر النسامية لا محكمة الله يسلق عليه سيدي مركز عضو وصول ليرتي والله قبسي السياسة دي حسابته وشيء كمل السياسة ده سياسيين أما سياسة أنا لسكو قبلنا دي سياسة بماها دتكو تنعدولان معها وحلقوا عقلي كموضة صعونية وكلا دونا شاركت السياسة دي فكر السياسي وجريا خلاف كنا حسابته وكوذا جرا كل ميو كجرا وهذا وكجرا لقيا من حرد مركز قال كودين وقرصوي هاي وأندر جراوند هاي وسايلي هلا كمرو قرحه بركة أريتان أعد لو سوء العرين أيو دوارين دمات أنا ومركز حلقة سجى معنا نشوفين قيمنا كما هين لكن دوا خلاف سياسي ده دعوة حسابته أنا كدعاء وأنا الحلي أو صفة شرعية لو حلي هدنا ده وحلا وحي صار دعي waxaan ka qaadanaynaa 10 iyo experience oo xisbiga quddiisa waxay noqonaysaa duruus oo meel alla meesha wax ka iman karaan loo booliska ama daldaloola inaan gufaynaan ku dadaalayna oo wax waliba ay noqdaan wax sharciya oo qoran oo wax weey hadhooto sharciga lagu kala bixi karo hadii il bani aadamku soo khilaaf waaye oo khilaaf siyaasadeed u yimaado وهاجاج khilaafkii مثلا marka ay agto Khaatumo iyo arintii dhinaca dawladda halkay maraysaa mid kale goboladan waxa laga yaabaa inta badan dadka goboladan ay nadaawanayaan amba intooda badan waxay lahaan dib ayay uga dhacsan tahay sababo badan oo ay kamid tahay مثلا waxyaabaha had iyo jeer salug siyaasadeed mashaakilo iska dhinaca qabaylka arrimaha sidee baad u arkaysaa wada hadalladii Khaatumo iyo Soomaaliland runtii bilow fiican bay ahaayeen aad baana loo soo dhaweeyay oo dadka deegaanka degaa iyo caalamkana waxa hareeraysan iyo saameynteena wada dhamaan reer Soomaaliland ay soo dhaweeyeen way wax aad muhiim oo inaga maqan buu ahaa wala ku mahadsan cidii ku dhiiratay labada dhinacba laakiin waxaad moodaa in ay ku soo beegmeen xilli kala guur election season xilli doorasho iyo campaign lagu jiro xukuumadda qudheedu say daacad uga wadasay 100% anigu ma hubo runtii shaki badan baa igaga jira ilaahay hadda waa qabiyo ilaahay hadda qodobada lagu heshiiyay waa qabiyo ma dhamaystirna haddana election iyo doorasho la galaya waxay ogtahay inay u dhacayso doorashada kadib cidii ku guuleysata hawlo taala inay noqonayso xagga horumarka goboladaasi waa run xaqiiqo weey inay ka dambeeyaan Soomaaliland inteeda kale mana arin iska dhacday runtii waa arin eedeeda qayb ku yeelanayaan Soomaaliland waayo
mandiqada waxaa saarnaa wax yani kind of embargo oo kale ah ama cunaqabatayn red zone bay ahayd iskamay gelin cid baa gelisay hay-adahan development partnerska in Somaliland dhaqaale iyada xaggeeda ka soo baxa ay isku hormarisaa ma jiro waa uun yani international donorska iyo development partnerska caawimada ka timaada weeyaan hay-adahaas deemay tagi jireen mandiqada runtii oo waxaad moodaa in lagu sheekeeyey mandiqadaasi mandiqa sayfa ma haddaad tagtaana mas-uulin kama nihin arrimaha runtii hadda laga wada hadlay khaatumo iyo dadka deegaankii meel keen karinoo matalan iyadu marka ay matalan bohood loo kale halka khilaaf baa jira waxa weeyaan waxa la samaystay bahal kuwaasoo kale oo hay-adihii arrimo saasoo kale miyaanay keeni karin wallahi hay-adihii hay-ado dadka deegaanka u dhashay ay yani way tegi karaan laakiin hay-adahan developmental organizationska saamaynta leh macnaha yani ay Somaliland ku dhisan tahay mandiqada kale ka jira Somaliland dee wadada jaaniba kullay siyaasadda ka jirta de Somaliland iyo sawirka ay ka bixiso bay ku xidhnaanaysaa haddii iyagu ay muujiyaan inaysan safe ahayn aagaasi oo aanay damaanad qaadan mas-uuliyadda ammaankooda dee tegi maayaan marka wax shacabku uu samayn kara maaha wax kullay way hay-adaha la socoto dee meel maamul ka jiray tagaan iskama tagaan meel vacuum ama fawda ay ka jirto ama bilaa maamula way xisbiga ucud waxa la leeyahay magac ahaan buu jira oo waa laga dareeray sideed u arkaysaa marka wallahi anigu ma arko sida xisbiga ucud xisbi waxaan u arkaa ka duwan xisaabta kale fursad fiican leh waa xisbi hoggaankiisu aanu record fiican ku leeyahay Somaliland oo waxa la wixii wanaag ahaa ama nabadayn oo dhan ka soo qayb qaatay waa xisbi dhalinyaro waa xisbi qabyaaladu ay ku yar tahay hadii waxba kugu daliila hadda murashaxiis anigu inaan ahay waa xisbi la yimid ama gartay waxay garan waayeen xisaabtii kale ee waaweyneyd ee ka jiray wadanka ama ha ahaado xisbiga xaakimka ama kan kale ee wadani marka waxaan isleeyahay wax walba meel bay ka bilaabmaan xisbiga ucud waxa weeye waan xisbi soo jiray oo ka soo qayb qaatay doorashooyinkii hore marka annagu baa ka dhinnayn iyo dhalinyaradu inay soo galaan insha Allah taala waxaan rajaynayaa inuu noqdo xisbi dhalinyaro oo dhalinyarada luqadda lagula hadlayo xisbi ay ka soo fasho oo luqadda dhalinyarada garanaya su'aal ma ku soo waday had kaalinteed baad ka qaadan kartaa maadaama dhalinyarada gobolada ka soo jeeda dhalinyaraduna saluug mina ka muujiyaan in aan ka qayb qaadanay marka la eego beeshad ka soo jeedo ay yiraahdaan afar halkan jooga ayuunbaa inta badan dhinaca siyaasadda gala kaalinteed baad ka qaadan kartaa iyo inaad guud ahaanba xisbiga aad u keento isbedel dhinaca dadka oo gaar ahaan dhalinyarada waxaan sheegayaa isbedel fiican inaan soo kordhiyo magacaabidayda aniga lay magacaabay ayaa lafteeda waxay tahay isbedel weyn runtii oo saameynteeda leh oo wax badan bedelaysa hadday noqoto anigu ka mid ma ahan siyaasiyiintii Somaliland hore soo jiray ama dowladda xiriir ka soo qabtay ama siyaasadda muddada dheer ku soo jiray marka populationka ama mujtamaca Somaliland sida la sheego 70% in ka badan waa dhalinyaro weeyaan marka dhalinyaradaas in chance la siiyo oo qof luqadooda kula hadli karayo ay fahmayaan ay garanayaan oo baahidooda iyagu wax dareenka ay dareemayaan ka tarjumi kara in la magacaabo loo magacaabo jagada inta leeg saameyn weyn bay ku yeelanaysaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dhalinyaro badan inaan soo jeedano ku soo jeedano xisbiga xagga arintan kale aad magacawday ee ah siyaasiyiinta gobolada ka soo jeeday halkan kamid ah xukuumadda ama siyaasadda halkan ku jira waa run oo mujtamacaasi inta badan waxay u arkaan inaanay dhab ahaan u metelay waayo number 1 de factors ka hore aynu soo sheegno inay ka maqan yihiin yani wada lahaanshihii dhabta ahayd xaqiiqada hay'adda Somaliland dareenkaas ku jira shacabka marka cid iyagu ay soo dirsadaan maaha ala waa ciidan kulli marka xukuumaddu iyadu ay magacawdo badina runtii waxaan oran karaa kuma dhiiran karaan kuma dhiiradaan in ay dareenka shacabka ay soo bandhigaan oo xaqiijiyaan anagu marka maanta fursad waxaan u helayaa dareenka dhabta ee shacabkaas ay qabaan inaan articulate gareeyo cadeeyo waxaan yeelay anaga de wax dabar xilaya ma jira platform baan haystaa taaweeyta aan hadii jeer kalsooni badan aan uga dhaxayn siyaasiyiinta gobolka ka yimaada iyo shacab weynihii gobolada ku noolaa waxa tahay Axmedow waxa tahay nin dhalinyaro xisbiyada kale marka loo eego rag beeshiina ka soo jeeda oo caan ah oo la yaqaano ayaa u ololeynaya maanta tartanna waa la gelayaa kaalintee baad isleedahay xisbiga cod waad ugu keeni kartaa runtii de maanta siyaasadda marka la eego caalamka iyo
innagaba waxa u firfircoon wada waa dhalinyaradu waxa weeyaan isbedel kasta oo yimaada caalamka hore taariikhiyan iyo haddaba waxa keena waa dhalinyaro weeyaan marka dhalinyaradu waa xoog cusub waa fresh energy wadadan daalayn waxaan isleeyahay aniga magacaabidaydu waxay soo jeedanaysaa dhalinyaro fara badan oo waxa weeyaan hawlkara oo awal aan fursad ama chance loo siin ay yani isku soo bandhigaan awoodooda iyo kartidooda siyaasadana dee waa la isbedelaa dadka waaweyn aad carabowday insha allahu tacaala dee waan nasinaynaa haddii aan laydmo muddo badan bay kusoo jireen wax badan bay soo qabteen markan insha allahu tacala waan nasinaynaa waa doorkii dhalinyarada weeyaan hagaag xisbigiinu haddii doorashada kolley waxaa la yidhaha dee guusha cid u baqaalte haddii uu ku guuldaraysta waxaa laleeyahay mustaqbalka rajadiini ma sida udub bay noqon doontaa sidaasaa ka go'aan doontaa mise xisbiga boorka ayaadu ka tumi doontaa wallahi xisbiga horuu doorasho usoo galay oo ugu guuldaraystay waana jiraa oo ma baabi'in marka may insha allahu tacaala xisbiga isbedelkiisu hadduunbuba bilaabmayba oo kusoo biiridda annagu aan kusoo biirnay iyo isbedelkan xisbiga ku dhacay uu yahay xisbi maanta metelaya oo iska dhex arkaan reer somaliland oo dhan ilaa min daraf ilaa daraf bari ilaa galbeed marka hadduba sii xoogaysanaya oo uu helayba awood iyo xoog uu kusii horumaro oo waxa weeye ku noqdo xisbi runtii ama doorashadaba ku guulaysta ama haddaanu guulaysan xisbi weyn oo opposition yani maxaa yahay booskii buuxiya opposition yani xisbi mucaarad waynu awood leh insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inuu ku guulaysan doono doorashada waxyaabaha barnaamijba ayaa lasoo bandhigi doonaa inkastoo aanu ololihii bilaamin haddana waxyaabaha ugu mudan isleedahay xisbigani barnaamijkiisa dadweyne ku kasban karaa maxaa ka mid a ayaa isleedahay xisbiga runtii barnaamijkiisii hadda waaba la daabaco buuggii waaban hayay ilaa taqriiban 60 page buu ka kooban weeyaan wax la wixii bulshada ku horumarto runtii oo dhan baa ku dhan haddii la dabaqo xaggii caafimaadka xaggii security-ga iyo ciidamadii daryeelkii bulshada cadaaladii iyo court systemkii iyo maxaa yahay maxaakimtii waxaasoo dhan energy-gii electricgii biyihii run ahaantii barnaamijka xisbiga waa barnaamij mutakaamil oo dhammaystiran weeyaan runtii oo unique ah oo arrintaas waa arrin laysla wada qiray weeyaan haddii aad google garayso qof kasta wuu heli karayaa oo internetku ka helaya xisbiga barnaamijkiisa oo barnaamij mutakaamil weeye runtii hagaag aan kula kaftame guddoomiyihiinu had iyo jeer xisbigan kale mucaaradka ee wadani waxaad moodaa inuu had iyo jeer dhaliil usoo dee xiliyo loo baahan yahay xataa inay mucaaradku ay gacanta isqabsadaan maxaa u sababa isleedahay adigu والله أنت أنا قم أوجي رنتي ما أعرف لكن ده حزب كستا مرك قال لك شيء سيسن هدي اللي بيجرو حل دور الشو حزب كستا وحويان اسمه والله ويرنا ويجي والله ويرنا وعد والله ويرنا أنت حزب كستا كل إنه اسمه تشيو وحسابت كلا دليله هذا نموتشيو وناقي سلام موتشيو وشيء political culture عادية ويا نورمال ويان وحكو قارة مع حزب ودرا من عيب قارة وحزب قاعد وقبه ودني ما شفته ترتب كده حية way qurbajoogiinu kaalin weyn buu ka qaataa had iyo jeer siyaasadda beelahaad beeshad ka soo jeedo gaar ahaan marka dhinac horgafaa iyo horum sideebada isleeda waad uga dhaadhicin kartaa maanta dhalinyaro badan iyo dad badan oo qurbajoogi si ay kaalin weyn uga qaataan maadaama waxyaabo badan oo ay filayeen oo matalan ay maanta aanay jirin oo iyo waxyaabo badan oo matalan aad ka mid tahay adigu sideed uga dhaadhicin kartaa runtii qurbajoogta madiqada ka soo jeedo aad ugu badan runtii khaasatan North America waqooyiga America Canada iyo Mareykan waa run oo waxa ka dhacaya yani dhulkii iyo gobolkii ama siyaasadda Soomaaliland iyo madiqada ka dhaxaysa majority intooda badan way salugsanaayeen ama lama dhacsanayn ama way ka soo horjeedeen waxaan isleeyahay haddeerto bisayl baa jira dadku dee siyaasaduna maaha wax istaatigo iska taagan oo aan isbedelayn maaha waxay la socotaa maslaxada shacabka marka bisayl baa hadda jira in madiqadii iyo gobolkii xaaladii ku jireen ahaa saysadka siyaasadeed ee sababay amni xumo ee sababay dib u dhac xagga horumarka ah in hadda loo bislaaday oo aad moodo inay u soo jeedaan in ay wax la qabsadaan mujtamacii kale Soomaaliland kaliya ay u baahnaayeen platform ay ku soo bandhigaan fikirkooda iyo dareenkooda taasina insha Allah taala waa aniga waxaan rajaynayaa inay ku qancaan oo wax weyn ka bedesho
durbo waan la xidhiidhnay waxaa ka imanaya fariimo positive oo wanaagsan oo hambaliyaha runtii gudaha iyo dibaddaba dee waa intaasaan ugula sii dhowaano. waa hagaag ugu dambeyn de waxaad jagadii waxaad tahay madaxweyne ku-xigeenka maxaa expectation maxaa kale intaa kaaga sii haddii aad guulaysataan maxaad is leedahay? wal haddaanu guulaysano waa maasha allah waa Soomaaliland oo guulaysatay weeyaan dee wadan midaysan oo aanu midaynay min daraf ilaa daraf dhul ahaan iyo qalbi ahaan iyo shacab ahaanba waana waxa ka dhinaa waxa weeyaan horumarka Soomaaliland inay horumarto in waxyaabo badan oo kaga xidhnaa international community-ga kaga xidhnaa oo runtii yani qaarkood ay wax dhibnaayeen khilaafka siyaasadeed ka jira dee aan sirta ahayna muuqda iyo gobolada maqan waxaan rajeynayaa waxaas oo dhanba inay markaa ay xal u noqoto Soomaaliland horumar iyo nabadgelyo waayo ummad shacab ama shacabkeedu aan ku wada qanacsanayn inay systemkii processkii ay wada leeyihiin resource-kii wada leeyihiin awoodda siyaasadda wada leeyihiin wadankaasi demo horumaro waxa weeyaan amnina ma helo marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa in magacaabidayda iyo guusheeda ku xigta hadii alla insha Allah ay sababayso wadan midaysan horumarsan nabadgelyo haysta shacabkiisa dadkiisa ay ku qanacsan yihiin ta expectation kayga runtii iyo rajada insha Allah taala waa taa weeyaan waa hagaag campaign baa imika la gelaya marka maxaad bal ugu baaqi lahayd dadweynihii kaalarka qaatay si hadhowto kaalin weyn ay uga qaataan waayo xoog ayaa loo qaatay markaad gobolada u eegto oo aad baa looga shaqeeyay marka kaalin weyn sideebad markaa maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada iyo dhammaan dadweynaha deegaanada degan? su'aal wanaagsan run ahaantii waxaad moodaa dhowr waxbaa kulmay waqtigan number 1 waxa weeyaan wadahadaladii nabadda ay khaatumay Soomaaliland oo meel fiican maraya markii horeysay deegaamada uu ka dhacay voter registration ama diiwaangelinta codbixiyayaasha walow yani sidii la rabay boqolkiiba boqol sida gobolada kale aan uga dhicin laakiin number fiican inay ka soo baxeen markii horeysay iyo magacaabida aniga la magacaabay markii horeysay shaqada madaxweyne ku xigeen inaan ku tartamo saddexdaas runtii waxaad moodaa inay rajo fiican iyo bilow fiican u yihiin Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland nabada Soomaaliland midaysan waxaan markaa ugu baaqayaa dadka shucuubta ama dhalinyarada is-register gareeyay isdiiwaan geliyay ama ka soo jeedaan mandiqada ama goboladan kale ee Soomaaliland waxa weeyaan aniga imaatinkaygu wuxuu u yahay astaan u yahay horumarka nabadgelyada iyo midnimada Soomaaliland marka soo bixitaanka anaga aan soo baxnaa run ahaantii waxaan isleeyahay way ka duwan tahay axsaabta kale aad moodo in iyaga siyaasadooda iyo dadka ka dhex muuqda axsaabtooda aad moodo dhul kooban oo mandiqo gaar ah ku kooban inay yihiin laakiin maanta anagu waxaanu nahay xisbi Soomaaliland darafkeeda ugu shisheeya xuduudkeeda ugu shisheeya ugu xiga xagga maartay bariga ama koonfurta ilaa iyo galbeedka xisbi ay iska dhex arkaan oo ay ku midaysan yihiin baanu nahay siyaasiyiinta Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland guud ahaanba waxaan ugu baaqayaa in ay ku dadaalaan oo yani khitaabkooda siyaasiga ama hadalkooda siyaasiga uu noqdo hadal waxa weeyaan soo jiidanaya ama midayn kara Soomaaliland waxa weeyaan waxaynu ognahay waxyaabo fara badan oo waxaa jira siyaasiyiintu ay kaga hadlaan meediyaha khitaabka siyaasiga ama terminology-ga ay isticmaalaan aad moodo in Soomaaliland aan iska wada dhex arkayn aan midaynayn mar raba in hadda kalimaadka magacaabo laakiin waxaan rabaa wadan waa wadankii dadkiisu ay leeyihiin taariikh isku mid ah oo ay raali ka wada yihiin iska wada dhex arkayaan ku wada qanacsan yihiin ama noqoto munaasabaadka waaweyn ama noqoto history ama noqoto manhajta la dhigay marka in aragtideena iyo fikirkeena inuu kor u qaadno oo aynu ka baxno khitaabka siyaasiga mararka qaarkood ku dhisan iska caadifada iyo emotionka iyo aad moodo qabyaalad in laga uranayo aynu u fikirno u hadallo mustamac u hadallo sidii qaran ama national level aynu ka hadallo taan soo jeedinaya waa taa weeyaan insha Allah taala wax badan baanu ka bedelaynaa siyaasadda Soomaaliland iyo khitaabkeeda siyaasiga ahba aniga iyo waxa kaalintee baad ka qaadan kartaa bal مثلا mararka qaarkood iska hor imaadey ayaa jira oo had iyo jeer مثلا mararka badan waxyaabo badan carqaladeeya marka adigu qurba jooga tahay
dadkii ma dhex tagtaa goorbaasi kuugu dambeysay dadkii ilaa 2014 hadda anigu aan dhex joogay run ahaantii markii u horeysaan imid bishii April 2014 ilaa bishii May June waxaan ka qayb qaatay oo aan u tagay deegaano badan oo ilaa iyo Saaxdheer Dharkayn Taleex arrimaha bulshada nabadayn u kuurgal horumarka iyo sida u nool yihiin mujtamacu marka intaaba waan ku dhex jiray runtii aad baan ugu faradhuubnahay ilaa hadda de waan ku jira deegaanka hadda waan tagaa oo markaan doono waa tagaa waa ka yimaada xiriir fiicanna waa la leeyahay marka maaha deegaan igu cusub hadda deegaankan arrimo waaweyn oo nabadayna oo hadda halkaan ku soo koobi karin ayaan qayb ka ahaa oo mararka qaarkood anigu aan fuudooda iyo odayaasha dadka nabadda ka shaqeynayaan hogaaminayay gaar ahaan koonfurta gobolka Sool وهاج سياستنا دبدة had iyo jeer dhaliilo badan baa jira oo waxa la ilaahay ka qayb qaadan jiray مثلا dad badan oo dawladda ka soo horjeeda oo mucaarad ah oo beelihiina ka tirsanay kuwa kalaba marka sideebaad ayay ugu muuqanaysaa sida maanta hadii la arko rag badan oo siyaasiyiin oo khaatumo arrintii soo dhawaatay waxyaabo kale arrimahan sidee kaalintee ayuu mujtamaca dunidu oo u qaadanaya waxaan rajaynayaa arrinta ku dhiiraday xisbiga UCID iyo gudoomiyihiisu aniga magacaabidayda iyo xisbigiina noqdo xisbi ay iska dhaxarkaan ay wada leeyihiin Soomaaliland oo dhan ilaa iyo bariga ilaa iyo galbeedka arrintaas dad badan ay qancinayso dad badan oo saluugsanaa siyaasadda Soomaaliland ama ka soo horjeeday inay qancinayso waayo waxaynu doonaynaa waxa weeye waa nabadgelyo waxaynu doonaynaa waa horumar waa nolol awlaadeena iyo jiilal soo socda inaan uga tagno nabad iyo horumar conflict iyo haysad iyo dagaal taariikhiyan iyo hadda toonna cidina kuma faa'iidin wax ku burbura kulma mooyaan marka dadku wadada aqoon leh waxbay diidanaayeen wixii sicitaankeediina waxaad moodaa hadda inuu bilaabmay oo wada hadallada nabadda aniga magacaabidayda platformkan ama siyaasadan cusub ee xisbiga UCID insha Allah taala wax badan bay qancinayaan dadku oo de waxay soo arkayaan dad يعني processkii ama systemkii ka jiray Soomaaliland wax ku leh oo door ku leh marka wax waliba boqol markiiba ma hagaagaan isma bedelaan laakiin insha Allah taala anaguna de qancin fara badan iyo hadal iyo xiriir badan looga baahan yahay iyo gabar fara badan isbedelkan dadku ay akhrinayaan ay arkaana waxaan rajaynayaa wax badan inuu ka qancinayo oo soo dhaweynayo way siyaasiyiin bidlo idinka ka tirsan dhinaca Puntland way wax xaglin jireen marka badanna waxa kaga iman jiray مثلا inay مثلا halkan la galaan xaqana labadaba ay la galaan sideed u arkaysa bal iyo fariiqeelna marka xawada jirta waxa weeye Puntland wax saameena kuma leh gobolka mantiqada Puntland magac mooyaane ama iska sheegata mooyaane wax saameena kuma leh haday noqoto mid siyaasadeed haday noqoto mid amni haday noqoto mid dhaqaale marka de waxay la mid yihiin uun siyaasiyiintan reer Soomaaliland ka dhashay reer Hargeysa reer Burco ee xamar jooga ama meelo kale jooga ama kiilka jooga la mid noqonaya marka Puntland habeeraad wax saameena kuma leh goboladaas waa uu sheegasho iska waxay been away waxay sheeganayaan aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga siyaasiga ah ee mucaaradka ah ee UCID waa Axmed Cabdi Muuse Abyan toddobaadka iyo barnaamijkeena intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa taliintaan ku kulmi doono aad iyo aad ayaan mahadsantahay waqtigaada siisay